dhisa dhisa dhulka dhisa walaalayaalo dhulka dhulkeena aneegsane dhisay ankula dhisay awada dhisay dhisa dhisa dhulka dhisa waloo dhinto lagu dhaawacme walagu dhasho waloo dhinto lagu dhaawacme walaalayaalo dhulka dhulkeena aneegsane dhisay ankula dhisay awada dhisay dhisa dhisa dhulka dhisa walaalayaalo dhulka dhulkeena aneegsane dhisay ankula dhisay awada dhisay dhisa dhisa dhulka dhisa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waddadii aan soo bilownay 2 bilood ka hor inay maanta taagan tahay taargetkii aan ugu talagalnay oo wax yar dhiman inay taagan tahay aad baan ugu faraxsannahay haddaan wax yar dib ugu noqdo waddadan backgroundkeeda waddadaanu waa waddo isku xiri doonta haddii alla idmo dekadda Garaacad iyo ilaa iyo gobolka Sool isku xiri doonta dhinacan kalena waxay isku xiri doontaa dekadda Garaacad iyo gobolka degmada Galxamur gobolka Doolo ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan rajaynayaa waddadaanu waa waddo noqon doonta inay u samayso customer badan ama macaamiil badan ku soo xiri doonta dekadda Garaacad sidaa daraadeed ahmiyad gaar ah bay u leedahay degmada Jariiban iyo dekadda Garaacad labadaba sidaa daraadeed hawshaas dadkan deegaamadan degan oo Salax iyo Boobi iyo Balambal iyo Qalaanqal iyo Malaasle haddii aysan waddadan heleen wax badan oo waxa kaga maqnaan lahaa dhibaato oo waxay noqon lahayd inay gaalkacyo ka wareegaan hadda si toos ay u galayaan dadkoo dhan waa u sahlanaanaysaa waxaan kaloo rajaynayaa dakhliga degmada Jariiban inay kor u soo qaadi doonto oo maaragtay deegaamadii la deegaameyn doono oo canshuurtii ka soo bixi doonto ahmiyadda balaaran bay u leedahay aad iyo aad baan dadka waxaan ugu bogaadinaynaa dadkii hore uga qayb qaatay oo yaboohii ay ku yabaheen soo gaarsiiyey waxaan leenahay jazaakumullahu khayral jazaa dadka yabooh ay ku yabooheen aan welina soo gaarsiinna waxaan leenahay ka soo qayb qaata oo hawshii weydin sugaysaa meeshii ugu fiicneed bay maraysaa inta aan laydinka buuxin oo hadhowta meelaad wax ku sadaqaysatan aydnan waayin haddeerba la soo gaara raggaas waxaan ka xusi karayaa baarlamaanka Puntland xubnihii nagala joogay oo yabooha ku yaboohay dee waxaan rajaynayaa baarlamaankii iyo kalfadhigoodu inuu dhawaan furmi doono haddii alla idmo yaboohiinii maalintii kalfadhigu aan maqallo waa la furay maalinta ku xigtaan idinka sugaynaa haddii alla idmo aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa sida sharafta loo aad waagi noogu ballan qaadeen waddadaanu waxay ahayn waddo weyn oo dawladda Puntland ay ogeyd oo heer wasiir iyo senator ay ka soo qayb galeen isimada Puntland oo Fiqi Cabdinaasir ugu horeeyay rag dhagax dhigay bay ahaayeen degmada Jariiban way joogeen dhammaan dadkaan oo dhan waxay ahayd hawshan in maaragtay meel fiican la gaarsiiyo shaqadan waxa weeyaan ilaa iyo waftigii boqorka waagi uu wadanka marayay waxyaalihii uu ballan qaaday bay kamid ahay inuu boqor Burhaan boqor Muuse uu meeshaan maartay markuu marayay waxyaalihii uu ballan qaaday inuu reer Salax baan filayaa inay ahayd markuu taagnaa inuu yiri wadadan in wax laga qabtaan rajaynayaa boqor waa ballan qaadkaaga waa sugaynaa haddii alla idmo yani waxa la hadii lagu sheegana waa la sheelaa haddii aan lagu sheegina waa la sheegaa haddii nala ilaaway hadda xusuusin bay naga tahay marka sidaa daraadeed waxaan leenahay ama heer dhaqan iyo heer dawladeedba waxaan rabnaa in laga soo qayb qaato meeshan waa ku faraxsanahay inaan maanta halkan soo gaarno Salax oo u jirta meeshii laga soo bilaabay wadadan Soombi Buurtinle Salax 70 kilomitir weeye shaqadaas ballaaran ee 70 kilomitir ah oo noo qabsoontay waan u mahadcelinaynaa cid allaale cidii ka qayb qaadatay oo u mudan tahay shirkadda Kibaarko oo runtii ku fulinaysay ayadoo kharash aan la siin ku fulinaysay oo iskabaysa ayadu waan u mahadcelinaynaa Puntland maadaama ay ku tilaabsatay dimuqraadiyad oo xisbiyo badan oo 8 hadda jiraan
waxaan leenahay xisbiyada waxaan leenahay maalgashada deegaanadan ciddii maalgashataba hadhow cod yeelan doonta ilaahay idankiis waxaan ka rajaynaynaa kambaniga kibaarka inuu noo dhammaystiro waddada oo 18 kiiloomitir dhiman uu dhammaystiro ilaahay idankiis waxaan ka rajaynaynaa dadka kale oo na maqlayana inay hadda kibaarka la soo gaaraan dhaqaalaha maadaama ay si voluntary hadda u shaqaynayso oo aysan wax dhaqaalaha helin in dhaqaalihii loogu yabahay la soo gaarsiiyo marka aad baan u soo dhaweynayaa ii sheeg shaqada sida u socoto waxaan qorsheynaynaa anagu 90 kiiloomitir inaan dhammaystirno waxaan rabnaa in shuruud la'aan aan dhammaystirno mar walba qalabka kibaarka wuxuu diyaar u yahay dalka iyo dadka inuu anfaco wax shuruud ayagoo xirayn kaliya loo dadaalo wixii hawsha ku qabsoomi lahayd in lala soo gaaro sida shaqada nooga istaagin annagu dhankayaga kama istaajinayn haddii alla idmo waddada waxay ka soo bilaabatay 90 kiiloomitir bay ahayd midaan dhinacaanihi dhinacii kalena 18 bishay bilaabanaysaa 28 ilaah baan u rajaynaynaa inuu hirgasho iyadana tanna 90 kiiloomitir bay ahayd waxaas ka dhiman 18 kiiloomitir isku tashi bay ahayd tuulooyinka iyo dadka shacabka baa lagu qoray lacagta $150,000 marka hore 3 fays bay ahayd oo fayskii u horeeyay laanguyadeeda intaas ahaa carrakaawadii iyo laamigiina waa ku xigay oo weli taas dhaqaalihiisina lama hayo lamana qoondayn dadkii lacagta lagu qaybshay reer baadiyaha u badnaa tuulooyinka abaar baa ku dhacday ilaha roob siiye dhaqaalihii sidii loo rabay waa looga heli waayey waxaa jirtay dad muxsimiina oo yaan hore lacag ku yaboohay khayr badan allaha siiyo ciddii lacagtaas aan bixisay xasanaad allah ka siiyo cidda aan bixinna waxaan ka codsanaynaa inay keenaan lacagtaas madashika ay ku baaqeen oo iyagu sadaqaysanayeen waxaan dadka ugu baaqaynaa meel kasta uu joogo hadduu dawladda yahay iyo hadduu shacab yahay iyo hadduu ganacsato yahay cid walba waxaan ugu baaqaynaa waddada in laga qayb qaato sida loo sheegay waddadaanu waa GBB waa galxamur buubi garaca galxamur iyo buubi waa 200 kiiloomitir hawsheedu mid ay soo socotay hadda waddadan taagannahay waa buubi buurtinle oo ah 90 kiiloomitir oo ay ka dhiman tahay maanta ilaahay mahadi 18 kiiloomitir intii kalena ay si habsami loo qabsoontay inta dhiman ilaahay waxaan ka rajaynaynaa insha Allah inay dhammaystiranto 18 ka dhiman tan galxamur buurtinla oo ah 110 kiiloomitir insha Allah iyana waxay bilaaban doontaa 28 bishan iyadana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu noo suura geliyo waddadaas awalan waxay anfacaysaa dadka deegaamada iyo dekada waxay mataanaynaysaa waddada wadaagsin ma ahan wadooyinka iyo horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalu inay caqabad isku yihiin waa inay iswalaaleeyaan isna taageeraan degmooyinkana aad baan uga mahadcelinaynaa sida ay uga qayb qaateen degmada Buurtinle iyo degmada Jariiba intaa kadib waxaan baaq dheer iyo mid gaaban intaba u diraynaa dawladda Puntland iyo tan Soomaaliya hadda kala guurka ku jira cidii khayr ka danaynaysa iyo qurba joogta iyo dadkii muxsiniinta ahaa oo wadadan dhagax dhigeedii baaqa sameeyay oo ay wax ay ku dhimanaayeen dhaqaalaha ay sheegeen qaybna ay keeneen qaybna ay dhiman tahay qaybtii dhamaystira waxa ay ku yabooheen khayr badan Allah siiyo qaybaha wax ku dhiman yihiin intaba waxaan ugu baaqaynaa wadada in laga soo qayb qaato wasaqatu jaariya dadkii tuulooyinka iyo xoolihii waqtigaas ku dhacay oo dhaqaalihii loogu talagalay lagama hayo waxaan ugu baaqaynaa in wadada laga qayb qaato xasanaad baa laga helayaa horumar baa laga helayaa dhaqaalaha laga helayaa wanaag baa laga helayaa aad iyo aad baan waxaan ugu baaqaynaa oo u soo jeedinaynaa in laga qayb qaato wadadaas waxaanu isugu nimid dhammaantayo oo dhinaca kasta ama degmada ha ahaato ama degmada Buurtinle waftiga ka yimid oo wadada guddiga wadada ha ahaato ama deegaanka Sala ha ahaato wadadii galxamur buubi oo maanta taagan meesha la yiraahdo Salax oo Toombi oo ay u hadhay 18 kiiloomitir labada degmo iyo deegaamada hoos yimaada waxay isugu yimaadeen wadada meesha ay marayso iyo hawsheeda iyo xaaladeeda iyo ka qayb qaadkeeda waxay wadada ku bilaabatay isku tashi bay ku bilaabatay xaaladii waa adkaatay hadda waxa weeye roobkii deegaamada xilli hore la maleynay in laga helo hadda lagama hayo xoolihii waxa hayaamay iyo wax meel kale loo raray iyo waxay ku soo dhacday wadadii meel ziira qurba joogta iyo dawladaha iyo adduun weynaha iyo cid kasta oo danaynaysa wadadaas galxamur buubi waxaanu ogeysiinaynaa maanta xaaladeedu inay halkaa marayso
isku tashigayagii inuu gabagaba yahay waxaanu codsanaynaa in la kala qayb qaato waxaanu joognaa aagga Sallax duleedkeeda meel u dhow waxaanu hor joognaa wadadii ka soo bilaabatay Burtinle ilaa iyo Buubi 9 kiiloomitir ahayd oo ay ka dhiman tahay 8 kiiloomitir 18 kiiloomitir taasoo xaaladeedu meel fiican marayso ilaahay baa mahadda iska leh waxaan uga digayaa ummadda oo wadadaasi ay marayso inaysan muddadaasi mudan wax caqabad ah meel kasta ay ku soo aado waxa la rabaa in gacan laga siiyo guri haday ku aado waa in gacan laga siiyaa haday baraak ku aado waa in gacan la siiyaa haday ku soo aado kanaal iska badaa meel kasta ay ku aado waa dan guud waa muhiimadeeni waa nolosheeni waa sharafteeni waa aayaheeni future-ka waa in gacan laga siiyaa cidii isku hortaagta ama caqabad ku sabaysaa adduunkana future macna ma leh tilaabana waa laga qaadaya aakhirana wax daran bay la kulmayaan waxaad yeelaysaan oo idinkaga baaqaya inaad wadada gacan siisaan maaha cidina caqabad ku noqon maanta waxaan joognaa Sallax 70 kiiloomitir oo wadadii ah ayaa hadda ay maraysaa waxaana maanta aan ognahay 18 kiiloomitir oo dhimanaa in ay hadda gaariga markaad safar aado shidaal ku shubatid meel markaad maraysid shidaalkii inaad misna taangiga buuxsta u baahanta maanta raggii hawsha waday inay hawshiina u hayaan niyaddii iyo sidii ay u wadeen kambarigii aan maqlaynay kharashkii ay ku wadi lahaayeen inuu ka go'ay ayadoo markii hore isku tashi u ahaa waxaan markaa ugu baaqayaa dhammaan ummaddii horay kambarigan fikirka ku lahayd aasaaska ku lahayd ballanqaadka ku lahayd intii sadaqadoodii iyo taageeradoodii gudbisayna haddii hawshii aad gudbiseen weli waa diyacan tahay inaad mar labaad af iyo adinba taageero aad wada garab istaagtaan inta dhimanna inay ka qayb qaataan waxaan dhammaan ugu baaqayaa in ay ka qayb qaataan dadka walbajoogta maamulka anigu aan ka midka ahay oo degmada Jariiban iyo gobolka Mudug iyo wasaaradaha dawliga iyo madaxweynaha dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan inay ka warqabaan arrinkaas socda oo wadada ah in waqti la geliyo sidii loo dhameystiri lahaa oo aan ayadoo 18 kiiloomitir maraysa aan shidaalku ogeyn